شرفي قدرين يقيمة أي كويسة إذا عدى أفتهن فيديو برودكشن وايو واحد سبسكرايب تري وأتكو حرمتها جنال كيوتيوب ككل إذا هاي أفتهن فيديو برودكشن مرول بود كو حرمتها هنا وحينو كابلا قاضينا إنا نكوسو بهينو برنامج سياسات أو آدو حساب بدن إسلا مركانا كترجمة مرحلة دا ودن كجرتي سياسة دا هزديدن ودحية دولة دا هوسائية ولبا مامل قبلية دا كجرة ودن كا هذا بس عدى استوديوها كواد إذا عدى أفتهن فيديو برودكشن أي كل إذا هي مقالة جوهانسبرغ dalka South Africa waxay abaaraysaa waqtiga aad dhageysan jirteen barnaamijka arooriyada subax wanaagsan oo qayb ka ah barnaamijyada ay baahiso idaacadda Aftahan Video Production iyadoo ka baahinaysa channelka YouTube-ka ku leedahay ee Aftahan Video Production waana channel had iyo jeer aad ka heli karto barnaamijyo uu ka mid yahay barnaamijkan imika idinku soo socda ee subax wanaagsan hadduu alla idmana barnaamijka subax wanaagsan saaka waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdillaahi Balwaana oo ku sugan xarunta idaacadda Aftahan Video Production ay ku leedahay magaalada ganacsiga dalka Koonfur Afrika ee Johannesburg. subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan waa barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan waxaa soo iftiintay qorraxdii arooriyadu shaaca ka qaaday maalin cusub oo hor leh waxaa wada dhaqaaqay dhammaan noolihii oo idil oo u kala dareeray kasab iyo tacliin waa la wada tilaabsaday isagoo qof walba uu maanka ku hayo waqtigu waa sida seefta ee inta uusan ku goyn adigu go subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan mar kale kula wanaagsan dunida meel walba oo aad ka joogtaan qodobada barnaamijka subaxnimo ee subax wanaagsan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Villa Soomaaliya Fahad Yaasiin oo dacwad laga gudbiyay maxaa lagu haystaa Fahad Yaasiin barnaamijka ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo maamul goboleedyadiina mar kale ayuu khilaaf xoogan soo kala dhex galay kadib markii lacaga fara badan oo loo keenay xukuumadda Xasan Cali Khayre si qaldan ay u maamushay waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan khilaafkan soo kala dhex galay xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo waliba maamul goboleedyada oo inuu saaka falanqay doona hadduu alla idmo magacaygu waa Cabdillaahi Balwaan barnaamijka arooriyada subax wanaagsan waxa uu gaar u yahay had iyo jeer channelka YouTube-ka la yiraahdo Aftahan Video Production waana mar kale iyo barnaamijkii subax wanaagsan subax wanaagsan inta sarirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan subax wanaagsan ayaanu leenahay meel walba dunida aad ka joogtaan qodobo dhowr ayaan ku soo maqan qodobada saaka barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah xildhibaan Mahad Salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa aad u salugsan heshiiskii dhawaan ku dhex maray magaalooyinka Djibouti iyo Muqdisho maamulada ahlu sunna wal jamaa iyo galmudug isteed wuxuuna sheegay Mahad Salaad si kale markii loo micneeyo heshiiskaas inuu ahaa heshiis u dhaxeeyay laba beelood oo ka tirsan beesha Habargidir oo la kala yiraahdo Sacad iyo Ayr iyadoo labadaasi beeloodna heshiiskii ku dhex maray Muqdisho iyo Djibouti oonan u dhicin si ay ku qanci karaan siyaasiyiinta waxgaradka culimo diinka iyo dhalinyarada beesha Habargidir sida waxa leh Mahad Salaad oo kamid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya saaka ayaanu barnaamijka ku iftiimi doonaa hadduu alla idmo balse marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qabta mar kale in la helo ciidamo qaran oo ka madax bannaan kuwa imika beelaha u abaabulan laakiin wata shaatiga qaranka waxaa meesha laga saari doonaa maleeshiyaadka sida beesha loo soo abaabulay isla markaana dawlado walba oo soo maray wixii ka dambeeyay 19 had iyo jeer la arko iyagoo wata tuutaha militariga iyo kuwa booliska isla markaasina huwan magaca qaran hase yeeshee si kale markii loo eego waa maleeshiyaad beeledyo waxayna dawladdu wadaa waqtigan abaabul ciidamo shanta Soomaaliya ay u wada siman tahay Maxamed Cali Xaga wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa idaacadda Aftahan Video Production ugu waramay bal halka uu marayo ciidamo qorshihiisu u yahay in laga dhigo mid qaran isla markaana Soomaaliyo dhan ay u wada midaysan tahay waa kan Maxamed Cali Xaga oo Muqdisho ugu waramay idaacadda Aftahan Video Production waxa farxad ah maalintii aan bilaabaynay samaynta saldhigga 3-aad ee Kismaayo integrationkeeda magaalada iyo airportka xitaa laftiisu sidoo ahaa si ka duwan maanta inuu yahay oo horumar fara badan ka muuqdo waxa kaloo qorshaha noogu jirtay iyadana
maadaama aanu wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ah integrationkana ahay dekada Kismaayo lafteeda oo hawlo maraakiib ay waqti hore ku fadhiisteen oo ciidanku lahaayeen sidii bal iyadana maadaama ay nimankan inoo dowladnimo dhisan oo taama ay yihiin ay noogala caawin lahaayeen dad gaara unba wax ka qabtay subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan xildhibaan mahad salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo jeeda gobolada dhexe ayaa aad uga soo horjeestay wada hadaladii ku dhexmaray galmudug iyo ahlu sunna wal jameeca magaalada Muqdisho iyo magaalada Djibouti waxa uu sheegay mahad salaad in dhan kale markii loo micneeyo heshiiskaasi uu ahaa mid u dhaxeeya laba beelood oo ka wada tirsan habargidir isla markaana khilaafkooda u gaaray heer aad u weyn waa beelaha Sacad iyo Cayr hase yeeshee qaabka loo maareeyay ma aha ayuu leeyahay mahad salaad kuwa lagu qanci karo ayanu barnaamijka ku falanqayn doonaa hadduu alla idmo balse marka hore agaasimaha madaxtooyada villa Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir dacwad ka dhan ah ayaa laga gudbiyay dacwadaasi waxay ku salaysan tahay qaabka sanduuqa lacagta dawladda oo u maamulo waxa lagu xamarayaa Fahad Yaasiin in hantidii qaranka ah oo ku tagrifaro isla markaana uu adeegsado danihiisa gaarka ah dhaqaale fara badan oo dawladdu lahayd ayuu Fahad Yaasiin lagu eedeynayaa inuu si gaar ah isagu jeebka ugu shubtay warbixin kooban oo ku saabsan dacwadda agaasimaha madaxtooyada villa Soomaaliya Fahad Yaasiin kusoo dhawaada dawladda Soomaaliya ayaa waxay siyaabo kala duwan u heshay dhaqaale badan oo ay ku yabooheen dawlado badan oo iyada taageero u muujinayay wadamada reer galbeedka iyo malaayiin dollar ku faraqay dawladda Farmaajo hogaamiyo waxaana ay dhaqaalahaasi badankood yihiin kuwa si qaldan loo meelmariyay agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxa lagu eedeeyay inuu sameeyay ku tagrifal awoodeed isaga oo qasnada Farmaajo ee dhaqaalaha deeq bixiyaasha caalamka isaga haya Fahad Yaasiin ayaa guriyo badan hadda ka bilaabay inuu iibsado si mustaqbalka ganacsi iyo goobo dalxiis uga dhigo gudaha Muqdisho meel kamid ah waxaana jira ku talaxtag dhaqaalaha qaranka madaxiisa lagu soo qaato oo la isticmaalayo xog ah in madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ka gaabsaday dacwada laga keenay Fahad Yaasiin oo xildhibaanna ku eedeeyeen inuu lunsaday xaqii qaranka uu lahaa subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan xildhibaan mahad salaad oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu salugsan yahay heshiiskii u dhaxeeyay maamul goboleedyada galmudug iyo ahlu sunna wal jameeca wuxuuna dhanka kale saxaafadda u sheegay in heshiiskaasi si hoose markii loo eego uu yahay mid u dhaxeeya laba beelood oo ka wada tirsan beesha habargidir Cayr iyo Sacad wuxuu yiri qaabka loo maareeyana ma aha qaab ay ku qanci karaan wax garadka iyo siyaasiyiinta beesha habargidir kordhow ayaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore khilaaf aad u xooggan ayaa soo kala dhaxgalay xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya kadib markii lacag la keenay magaalada Muqdisho loo qaybin si ay ku qanci karaan maamul goboleedyada wadanka khilaafkan waa uu soo noqnoqday isla markaana waxa uu qayb ka yahay khilaafyada had iyo jeer u dhaxeeya xukuumadda dhexe iyo waliba maamul goboleedyada oo gaaray heerar aad u kala duwan warbixin kooban oo ku saabsan khilaafkaasi kusoo dhawaada waxaa soo laba kacalay khilaafkii u dhaxeeyay maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe taas oo ka dhalatay lacag la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladaha qaliijka ayaa kala dilay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo nidaamka federaalka maamulada ku aas-aasmay ee dalka ka jira dhaqaalahaas iyo waxa ku jira mid ay dhawaan ku yaboohday dawladda Sacuudiga oo deeq iyo lacag cadaan ah ama kaash ah ay keentay xamar toddobaadkii hore markii diyaarad ay ka degtay ama ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa waxa uu ka carooday in lagu tuntay hawshiisii oo wasaarado kale ay qabsadeen shakhsiyaad ka socday taasina uu ku tilmaamay mid dib u dhac u keeni karta haykalka dawladnimo ayaa xafiiska wasiir Juxa qof ka shaqeeyay waxa uu sheegay inay jirto ismariwaa cusub oo ka dhashay dhaqaalaha dalalka qaliijka ay u soo daabulayaan Soomaaliya oo qaybsigeedii dhibaato ay ka timi subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan
wanaagsan xildhibaan mahad salaad oo kamida baarlamaanka federaalka Soomaaliya kana soo galay dhinaca gobolada dhexe ayaa aad u salugsan wada hadaladii u dhaxeeyay maamul goboleedyada Galmudug iyo waliba ahlu sunna wal jamaa oo ka kala dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalada Djibouti ee dalka Djibouti wada hadalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii khilaaf xooggan oo u dhaxeeyay Galmudug iyo waliba ahlu sunna wal jamaa iyadoo qaybo kamida deegaanada gobolada dhexe ay kala haysteen maamuladaasi ayaa isku afgaran waayay dhowr jeer wada hadallo dhinaca telefoonka iyo is arag dhinaca qabaa'ilada iyadoo ay kala degaan deegaanadaasi dadka gobolada dhexe oo isugu jira 11 qabiil hase yeeshee khilaafkani wuxuu si gaar ah u quseeyay laba hogaamiye oo kala maamulayay Galmudug iyo ahlu sunna wal jamaa qof kasta oo Soomaali ah uu ka warqabaa in Galmudug madaxweyne ka noqdo had iyo jeer isla markaana uu ka noqon doono beesha habargidir gaar ahaan Sacad halka gobolada dhexe iyo ahlu sunna wal jamaa ay hogaaminayaan beesha habargidir gaar ahaan Cayr waxayna taakilifaysaa in heshiiskan uu noqonayo mid laba jeer la kala micneeyo mar waa midka guud ee waa ahlu sunna wal jamaa iyo Galmudug state mar waa midka guud ee waa maamulada ahlu sunna wal jamaa iyo Galmudug ee kala jooga Dhuusamareeb iyo Cadaado hase yeeshee dhanka kale marka si hoose loo dejiyo waxay noqonaysaa khilaaf u kala dhaxeeya habargidir gudaheeda iyadoo beelaha Sacad iyo Cayrna ay noqonayaan labada beelood ee ugu tunka weyn gobolada dhexe isla markaana beelaha kale ay noqonayaan kuwo soo raaca markay heshiiyaanna aanan xitaa la siin fursada iyagu ay kula hadlaan ama ay uga hadlaan arrimaha shirarka iyo heshiiska labadaasi beelood u dhaxeeya had iyo jeerna dhexmara magaalooyinka Djibouti iyo Muqdisho marka la isugu tagay waxa ay soo fariistay heshiiskana wada saxiixday hogaamiyaasha ahlu sunna iyo Galmudug waxayna labadooda ka soo kala jeedaan Cayr iyo Sacad oo ka wada mid ah beesha habargidir waxaana arintaasi aad uga qayladhaamiyay xildhibaan mahad salaad oo caan ku ahaa difaaca iyo kor u qaadista qof kasta oo gobolada dhexe ka soo jeeda wuxuuna sidoo kale qayb ka yahay xildhibaanada kuwooda ugu dhaqdhaqaaqa badan ee had iyo jeer u hadla oo qof kasta oo Soomaali ah si gaarana waxa uu mahad salaad caan ugu yahay taageero xooggan oo ka haysta dhinaca gobolada dhexe waxa uu saaka leeyahay khilaafka u dhaxeeya iyo heshiiska Djibouti iyo Muqdisho ka kala dhacay waxa loo micnay kara ayuu yiri laba beelood mid u dhaxeeya marna si guud hase yeeshee wuxuu dhammaanba wada salugay qaabka heshiiskaasi loo maareeyay in magaalada Dhuusamareeb ay noqoto caasimadaasi shaki kuma jiro qof kastana waa uu raaci kara ama waa uu ku raaci kara cod dhameystiran hase yeeshee arrinta muranka taagan uu leeyahay mahad salaad uma cuntanto beesha habargidir waxay tahay Cayr inuu si quwad leh u qaato caasimadii wadanka ra'iisul wasaare wadanka waxaan ula jeedaa gobolkii Galmudug ama gobolada dhexe waxa ay noqonaysaa ayuu yiri mid aynan ku qanci karin qaar kamida beelaha habargidir oo u soo dhabar adeegay ilaalinta magaca Galmudug ay qayb ka tahay beesha Saleemaan oo kamida habargidir isla markaana Cadaado ku haysay Galmudug muddo aad u dheer dhibaatooyin xooggan kala kulantay markii ay Cadaado ku haysay Axmed Ducaale iyo madaxweynayaashii ka horeeyay haddaba Cadaado waa laga dhaqaaqay mahad salaad waxa uu leeyahay Cayr iyo Sacad uma suurtagelayso waqtiga ay baahida qabaan inay soo xasuustaan habargidir inteeda kale markii baahidu ay dhamaatana ay iloobaan looma dul qaadan kara ayuu leeyahay mahad salaad oo warbixin ka sameeyay barnaamijkii wada hadalka ahlu sunna iyo Galmudug state waxa uu markale ugu baaqayaa mas'uuliyiinta gaar ahaan hogaamiyaasha labada maamul ahlu sunna iyo waliba Galmudug inay dib u xasuustaan wali inay xaq leeyihiin beelihii u soo dhabar adeegay Galmudug state iyo beelihii diyaar u ahaa jeer midnimada gobolada dhexe iyadoo waliba lagu baaqayo ama uu mahad salaad ugu baaqayo hogaamiyaashaasi inay ilaaliyaan midnimada beesha habargidir oo had iyo jeer muhiim u ah gobolada dhexe haddii habargidir khilaafkan uu si laba lixaadsado had iyo jeerna beesha Sacad ay noqoto meesha ay dan ka leedahay inay ku nagaato waxay noqonaysaa mid ay had iyo jeer u cuntameen ayuu yiri siyaasiyiinta waxgaradka iyo waliba culama u diinka beesha habargidir had iyo jeer Sacad waxa ay qayb ka yihiin beelaha habargidir kuwooda ugu indhaha dheer waxayna mar walba ku celceliyaan barnaamijyadan oo kale haddii uu Sacad ku dan leeyahay sida mahad salaad warbixintiisu ay leedahay waxay had iyo jeer duudsiiyaan dhammaan beelaha habargidir tanina suurtagal maaha ayuu yiri mahad salaad oo warbixin kooban uga hadlayay heshiiskii ku dhex maray magaalooyinka Muqdisho iyo Djibouti hogaamiyaasha ahlu sunna iyo waliba Galmudug state subax wanaagsan inta sariirka xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii subax wanaagsan
dhegaysta waad ku mahadsan tahay dhegaysiga iyo la socodka barnaamijka subax wanaagsan bahdii barnaamijka oo isku duubanna dhegaysta waxay hawada ku soo marinayaan inagoo ku xiisa qabna haye subax wanaagsan subax wanaagsan subax wanaagsan inta sariirta xanuun la saran Allah ka saare subax wanaagsan